madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ayaa go'aan rasmi ah ka soo saaray xilliga ay qabsoomayso doorashada madaxtooyada Soomaaliland waxaana loo soo gooyay sanadkan aynu ku guda jirno bisha 10aad 2017 inay qabsoonto doorashada madaxtooyada Soomaaliland. doorashada baarlamaanka iyo golaha deegaanka ayaa iyadna lagu wadaa inay qabsoonto bisha 10aad 2018. kulankani oo ay saxaafadu dibajoog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa madaxweynuhu ku dhawaaqay go'aanka rasmiga ah ee laga soo saaray saddexda xusbi qaran iyo komishinka doorashooyinka qaranka iyo madaxweynuhu ay isla qaateen waxaanu madaxweynuhu bartaasi kaga dhawaaqay go'aanka rasmiga ah ee laga soo saaray qaraarkana albaabadu ay u xidhnaayeen. inaynu nahay ummad wixii khilaaf ah ee dhex yimaada ku xallili kara wadatashi tanaasul iyo danta guud ee qaranka laga hormariyo danaha gaarka ah. mar labaad habdhaqankii waa kaa aynu ku soo aanamaalnay ee duniduna inagu majeerato. ugu dambayn waxaan idinkula dardaarmayaa inaynu u gurmano ummaddeena abaaruhu taabaalaayeen. sidoo kale waxaa idinku cadeynayaa in laga fogaado in laga fogaado wax kasta oo bulshada kala qaybin kara ama tafarar ku keeni kara isla markaana abuuri kara xanaf iyo xajiin aan loo baahnayn. allah mahadle. sidoo kale saddexda hogaamiye xusbi qaran ee dalka ayaa iyaguna halkaasi warbaahinta kula hadlay isla markaana ku soo bandhigay go'aanka mowqif ee ku aadan doorashada inay qabsoonto bisha 10aad 2017 waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan. waqti habboon ayuu baan ka dhashirinay aad iyo aad waxaan u hadlayaa madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo wasiirka madaxtooyada maanta isku kaayaan barlamaadkii markaa waxaan isla gaadhnay arrin aan ku wada midaysannahay insha allah tacaala jeclahay inay hawlaheeduna nagu dhamaadaan abaarta ilaahay naga saaro subxaana wa tacaala doorashadana ku qabsan. marka waxay iyadana inoo taagneed doorashadii baarlamaanka wakiilada iyo dowladda hoose iyaguna وقت قولي وفهم وقت عسر وقت. مركب ما نروح كل شيء الحمد لله رب العالمين. نبيش أكتوبر دارينا. تبكي نبكي يا تبيه تبكي. أينون أبصمت إن شاء الله تعالى في مدحويله هيك دوري. أنا بقول إيه وقت الروبينوتو تدخل في السوق دوغات نوع صلينا كثير وقت الدور الشغل ذاك هو رئيسي مركا أنت وسويش ولا غرب وكيش مدحوينه وتشوجا مدحوينه بيجي أحزاب تكرمكا كوميشن كدور شوي كرمكا وحبلا ما لقى ضوضي ولا استنعيه وهذا كلام قرطي وقتي كم مناسبة إنه لتيجي ظروف فضلا وهذا كم يتعاي كل يوم يجي وأوقات كم يتعاي وقت هو هبون سيو كنا واقعي بدونية كويسة على سلا قاعد الدورة شدي من الحسوية جمهورية السودان لأن الأخطاء طبعا كأخطاء 66 فكان سلا قاعد إن وقت لو غلطت دورشة البرلمان في دقيقة وأنا لو خصمت أكتوبر 2018 أول هذا لأن كميش دورشة القرن وحكمت هو سامنت على بعض المكان كله هنا أورت المسج يبغى هو إنه استمر الله أورتها إلى واحد كل ما أورت الموضوع ويوم وكل دقيقة هاي بس ويلا الكلام اللي ما برديه تكلم وهذا الكي يبغى فايتي محلي أنا أورت يوم سامنت كده دورشة سida odaygu hore u sheegeen waxaan madaxweynaha amarkiisa markaan ku niminaa isla falanqaynay halka wax la dhigi karo
waxaan ogeynay muddaba imanka inay socotay in waan saddexda xisbi waayo saddexda xisbi waxaana isku raacay waa dhibaata inaga imanaysa ama waxa weeyaan waxay dhibaato yaraanaya walilaahi alxamdu maanta la isku raacay waxaa hadda ugu horeysa leh ilaahay subxaanahu watacaala ina kala siiyey sidii aan ku aanamaanay saddexda hogaamiye xusbi qaran ay bartaasi ku diideen inay warbaahinta uu su'aalo ku weydiiso. Cumar Shaafi, TV-ga caalamiga Rayo, caasimadda Somaliland, Hargeysa.